kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii idaacada caalamiga ah ee Gary Global Network. Wararka naga soo gaadhaya deegaanka Daawa ee degmada Mooyaale ayaa sheegaya in 3 qof lagu xidhay Mooyaale oo uu ku jiro Cabdiraxmaan Xasan Majaani. Waxaa lagu eedeeyay in ay dayaceen qarax shidaal oo 2 maalmood ka hor lagu dilay, laguna burburiyay guryo badan oo ay ku jiraan Mar Ali Manur, Sadiya Ali Okola iyo Malin Xasan Majaani gurigiisa. Waxaa la sheegay in qaraxan uu ka dhashay bakhaar aad u badan oo fuustooyin shidaal ah oo aan la ogolayn oo lagu kaydiyey guriga mudane Cabdiraxmaan Xasan Majaani. Si kastaba ha ahaatee, baadhitaankii hordhaca ahaa ee ay Gary Global Network samaysay ayaa lagu ogaaday in maamulka degmada ay ka warhayeen in guri gaar ah lagu kaydiyo shidaal aad u badan oo aan sharciyeysnayn, balse ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan ama dabagal ku sameeyaan xogta la siiyey. Haddaba booliiska deegaanka iyo maamulka degmada ayaa la sheegay inay heleen lacag laaluush ah oo aan cadadkeeda la cayimin, taasoo u oggolaanaysa qof ama koox gaar ah inay kaydiyaan tiradaas badan oo shidaal ah. Sidaa darteed, waxa aan qarsoodi ahayn in dhowr taangi oo shidaal ah lagu soo geliyey guri shakhsi, laguna iibiyey suuq madow 300 oo bir halkii qashin. Sidaa darteed, dadka badankiisu waxay aaminsan yihiin in xadhiga Cabdiraxmaan Xasan uusan ahayn wax kale oo aan ahayn in daaqadaha la xidho oo keliya in ay u muuqdaan in saraakiisha soo xidhaya ay shaqadooda wataan. Laakiin maaha. Sidoo kale, wararka laga helayo Mooyaale ayaa sheegaya in 8 qof oo Oromo ah oo ka soo jeeda Borana lagu xidhay maanta February 2025. Waxaa lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin nabaddiidka oo ay ka mid yihiin jidgooyooyinka iyo in ay dadka kale ku dhiirigeliyaan in ay sameeyaan falal sharci darro ah. La shaqaynta fallaagada Oromada ee sharci darrada ah, ku dhiirigelinta kuwa kale inay carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee caadiga ah. Degmada Hudad. Mid ka mid ah nin weyn oo aan la aqoonsan oo jirkiisa oo xumaaday ayaa la helay isagoo geed ka soo laadlaadsan. Ma cadda in uu isdaldalay ama uu qof dilay. Marka waan cusboonaysiin doonaa marka macluumaadka cusub noo soo baxo. Waad ku mahadsantiin daawashadiina.